Okay, soo dhawaada mar kale caawa insha Allah waxaan sameynaynaa design-kan halkan noo yaalo aan rabnaa inaan dabaqno anagoo isticmaalayno muxuu ahaaye wixii habeen horeeto iyo xalay aan soo baranay marka design-kan very simple asan filayo. Okay, marka design-kan aan dabaqaynaa anagoo isticmaalayno React components Brobis iyo muxuu ahaaye kan saddexaad oo ah childrens. Okay, intaas concept inaan meeshan aan ku dabaqi karnaa rabnaa in application kan aan ku sameyn karo marka soo dhawaada. Okay, marka kulli application ka waxaan rabaa wax yar inaan kala nidaamiyo oo aan xoogaa yar hawsha aan nidaam aan u sameyno marka halkan kulli image aan rabnaa inaan isticmaalno image-yada kulli waxaan isticmaalaynaa sawirada halkan noogu kaydsan marka sawiradan afartan xabo ayaan rabnaa inaan isticmaalno marka sawiradan waan soo qaadanaya halkan gudahan geysanaya Finder gudihiisa then Finder gudihiisa waxaan uga baahanahay inaan geysto public marka waa arkaynaa horta si random aan u fiirinaynaa sida sawir React loo soo geliyo React sawir haddaad rabto inaad soo geliso kulli saddex qaab oo soo gelin kartaa hab URL ah hab yani muxuu ahaay package files ka way maqlaysin soma okay hab waxa u soo gelin kartaa URL hab yani fileskaga oo source-ga ama meeshaad ku shaqeynayso ahaan oo soo import garan kartaa sidoo kale tan waxa gelin kartaa public. Okay, public hada doontan waa gelin kartaa public ilaa waa page root-ka ah meeshaas baad hadhootana sawirada public aad ugu talgashay aad geysan doontaa marka saddexda qaab si random aan u fiirinaynaa marka koowaadba kulli hadda sawirada halkan waan keensaday waxaan rabaa kaba soo qabo hal sawir oo yani sample ah kana soo koobiyeysanaya sariirtan ama waxa soo qaada logadan something logadan soo koobiyeysanaya like copy kaba soo qabo halkan aan dhiganaya. Okay, marka way paste halkan aan soo dhigto logada marka kan SVG ga marabo kulli waa React logo kulli SVG waa design-ka noocan oo kale tawaay kulli waa la bartaa sida SVG ga loo sameeyo marka maraba hadda waxaan iska deleedaya. Okay, that's it logada halkan inoo taala kulli React page ugu horeeyo React way kan soo jeedan marka I don't need this test kan marabo saddexdoodaasna waa iska deleedaya intaas markay dhaafto good intaan ay soo hartay intaan marka gudahan aan galayaa logadana rabaa marka hal mar inaan idin la wadaago sida logada halkan ay ku timaado saddex ama sawir macnaha logada kaliya ma sawirada oo dhan sida meeshan lagu keeni karo marka sidaan sheegay waa saddex qaab kow horta waxaan soo import gareynaynaa marka koowaad nidaamka koowaad aan maraynaa anagoo import gareynayno sawirka marka sawirkan simple public la geen doona laakiin waxa geeni doono virtual damka qaado doona sawirkaas markuu build gareey page data wuxuu geen doonaa public marna anaga keen doono marna kulli internet kana sawirra uu leeyahay URL ka baad isticmaal doonta very simple watas marka halkan waxaan leenahay import then waxaan leenahay image kulli magaca doonta iska la bixi kartaa image aan leenahay kadibna waxaan leenahay from waxa ka soo qaadaysa image-ka / macna file-kan hadda aan ku dhex jiro folder-kan hadda ku dhex jiro file-ka ku jiro la yiraahdo logo.png. Okay, .png taas sidaas inaan dhahno marka hal mar intaan ku soo bandhigo waxaan leenahay const kadibna app just waxaan sameynayaa component yar oo kaliya image un soo daabacay return waxaan leenahay div just inside this div image tag and furna deetana waxaan halkan soo gelinaynaa src deetana waxaan halkan leenahay inta awal kor waxaan naqaanay css ka halkan inaan html ka caadiga inaan halkan logada position-keeda aan halkan ku sheegno laakiin hadda waxaan isticmaalaynaa importigan marka halkan kaliya calibrates fur doonta. Okay, way maqshan sama calibrates baa furaysa deetana waxaan gelinaysaa image hello okay image baan gelinaya marka hadda save dhaho save aan leeyahay deetana waxaan tagayaa halkan marka kan meeshaan ka saaro save marka app waa kana deetana waan sawir baa hadda soo geliyay marka sawirkaan rabaa xoogaa yar inaan idinka sii hordhaco marka halkan waxaan leenahay npm start
kahor horta wax yar waxaan iska xirayaa wages aga yar computerkayga waaya it's not your computer okay clear marka halkan waxaan leenahay yan ama npm start okay okay marka kulay oo ujeedan Soomaali loogadii oo halkan keenay kulay si fiican uma muuqanayso laakiin halkan background kan ka dhigo style kulay colorka background ka bedeli karna soo rajeenay inta waxaan leenahay background color is black just black kulay colorada dhan halkan ku jiraan aad doonto color yani custom hadaad rabtana oo yani hesha dismalka kulay halkaas sida toos u keen doonta ama adartan aniga adartan waxaan isticmaalaa kaba soo qabo 333 dag macna okay so majid loogada saasi ku timid hadartan maxaa isticmaalnay nidaamka importiga halkan hadaad fiiriso source inspector dando aan tago source markaan tagno static media maxaa ku jiro loogadii oo la soo compile gareeyay markuu soo compile gareeyay react ayaa halkaas keenaysa that's markaan soo import garan qaabadaas way saas oo kale to ayaa ku keeni kartaa marka nidaamkan hadaad loogada rabto in public iska ahaato kulli waa iska public loogada marka sadartii waxa la sameeyaa meeshan public la geeyaa it's not good practice in halkaan oo kale taad dhigto okay waxa kale jiro muxuu ahaayeen in nidaamka waa aragnaa soo in saan oo kale to simple oo soo import garanaysa kaliya location ka taala dhiga doonta halkaan shardi ma inaad log ama magaca file-ka inaad ku aadiso kulli any name waxa doonta wala bixi kartaa hada image wala baxay data halka stringiga aan ka gelin karnay src-ga waxaan gelinaynaa calibrations loogadaas aan ku dayn doonaa okay qaab kale tan waa samayn karnaa halkaan inaan tagno aan loogada inaan koobiyeyno copy halkaan aan keenno aan dhahno paste intaan kusii dayo soo halkaan aan tagayaa marka kulli halkaan ma rabo kana marka waxaan leeyahay loogada waxay taalaa hadda uma sheegay kan iska tiraaya loogada waxay taalaan leenahay position ka hadda joogtid image ama logo.png okay sinki inaan qaldanin save oo jeedan soma same way iyadana sidoo kale ku timid means markaan leeyahay slash waayo folderka ayaan waxaan iray ./ marka tiraahdo waxay ka dhigan tahay folderka hadda joogtid haddaad dot ka tagtidna same way waxay ka dhigan tahay folderka hadda joogtid laakiin se hadda waxaan iray folderka hadda aan joogo log ka soo qaad means ma aha kan inuu yahay okay kan aan iska deleedo kan waan deleeday halkaan haddaan tagno aan refresh do same okay logada way joogtaa marka why aan slash kaliya u dhahay react waxaan ognahay mar walba oo page la compile gareeyo ama react wax compile gareyso waxay halkaan ku shubi doontaa root kan ku shubi doontaa root ka mar walba wuxuu yaalaa position ka ku public uu yaalaa marka public gudihiisa markii kulli html inta la keen doono soo halkaan uu baa la dhigi doonaa image amal tag saan oo kale la dhigi doonaa deetana waa anagoo dhahnay ka macna src/image ka macna okay aan iraade ./image saasoo kale anagoo dhahnay ka dhiganta okay marka qaabkaas oo kale to waaye marka maadaama halkan keenayo waxaan iri kulli marka compile gareysid meesha tagi doontid position kaas file-ka ku yaalo position kiisu buu yaalaa loogada folderka file-ka aad geen doontid xogtan marka compile gareysid file-ka aad geen doontid index la yiraahdo isla position kaas uu leeyahay loogada okay marka qaabkaas way taas clear wala aysan zaman marka loogada labadaas nooc iyo qaab kale to saddexaad kulli waa inaad internetka sawir ka soo qaadato hadda kaba soo qabo intaan waxaan leenahay image then kanoo kale tan tagayna deetana kulli waxaan soo koobiyeynayaa oo jidan sama hello copy address kiisun baa soo koobiyeynayaa waa kana marka sawirka okay url kiisa halkaas aan keenay save aan leeyahay deetana halkaan markaan tago sawirkii uu keeni doonaa clear ya si toosan yani url kiisa haddaan soo koobiyey positionkaas src un baa si toos u keenaya
marka kulay kan hore u taqaaneen waxa waaye HTML ku shaqeynaysa sawirkaas hadii la diliyo baxayo sawirka hadii la diliyo internetka qolada folderkan oo yani website-kan uu ku jiro hadii laga diliyo kulay anagana nooma muuqanayo waayo location-kan ka soo akhrisanana halkan waa marka location-ka haduu local noo yahay slash kaliyan isticmaal doonaa hadii uu meelahan kale noo yaalo anagu ugu talagalno asigana waxaan isticmaali doonaa nidaamka kale oo ah inaan soo import garan inta soo helaysan sama okay saddexdaas qaab ayaa sawir hadad u baahan tahay react aad ku soo gelin kartaa marka aan hore u socono kulay taas un baa nagu cusub markaan design-kan aan dabaqeyno kulay image-kaas un baa xoogaa yara nagu cusbaanayo marka sidaa darteed halkan haddaa ila fiirisaan waxaa rabaa shax yar inaan dego kulay kuwan saa ujeedaan waa isla midkan wuxuu leeyahay title description iyo button okay iyo sawir sax saddex uu leeyahay wuxuu leeyahay title description iyo muxuu ahay button oo labelkiisa ama button label iyo wuxuu leeyahay sawir uu leeyahay kanna sidoo kaleeto waa lamid afartaa dirtaan soo sheegay uu leeyahay kanna sidoo kaleeto waa lamid afartan marka maadaama ay isla mid yihiin xogtooda waxaan ku diyaarsanaynaa magaciisi JSON aan ku diyaarsanaynaa waxaan ka dhigaynaa wax ka imaanaya back end camal okay marka halkaan aan tagaynaa component halkan ku sameysanaynaa waxaan leenahay components deetana halkaan aan tagaynaa waxaan leenahay okay kaasaan furanayaa waxaan leeyahay file waxaan rabaa ama data.json just like that okay JSON file ayaan xogta rabaa inaan ku kadsado marka xogtan list waaye saa ujeedid kulley waa hal object kulley intaan hal object aan ka dhigi doonaa kanna hal object kaleeto kanna hal object kale aan ka dhigi doonaa macnaha okay inta soo helaysan soma hello okay list waaye marka saddex object ayaa ku jirta listigan saddexda object kulley halkaan ku qori doonaa objectiga labaad iyo kan saddexaad okay kulli JSON-ka waa la fahmaysaa marka halkaan aan tagaynaa wuxuu nooga baahan yahay saddex shay saddexda shay aan u baahnaa wuxuu nooga baahan yahay afar shay wuxuu u baahan yahay mid walba title description button label iyo image saddexdaas aan u sameysanahay marka halkaan waxaan leeyahay label ama title page-ka title-kiisa symbol title-ka hadda waxaan rabaa inaan midkaan oo kale taan qaato figma-na waa iska xiray kulli title-kaan ka qaadanaya waxaan leeyahay figma midka hadda ugu dambeeyey hello okay qoraaladan ka qaadan rabaa xayar figmaan qoraaladan ka qaadanaya qoraalada ma qori karno hadana dib intaan koobiyeynayaa waxaan leeyahay inta kan title-ka qaybta ugu koreyso waa objectiga koowaad title-kiisa halkaasaan ka haysan sidoo kale waxaan u baahannahay description description-ka asagana waxaan leenahay kolley information-kan iska soo qaadanaynaa lorem-kan okay lorem-kaasaan soo qaadanaynaa that's description okay sidoo kaleeto waxaan u baahannahay mid saddexaad oo ah image-ka okay image-ka maadaama aan isticmaali doono nidaamkan public ah wax importina noogama baahno halkan kaliya waxaan leenahay image URL ama image iskaba dheh deetana halkan waxaan keensan doonaa muxuu ahay commentaas ilaado intaa marka waxaan keeni doonaa URL-ka image-ka marka hadhowt waxaan rabaa inaan keeno folder aan inta ku sameyn rabaa tusaale folderka halkan waxaan leeyahay assets deetana images-kana soo qaada doonaa halkan aan keeni doonaa okay sorry okay halkan aan keenaya images marka waxay ku jiraan assets folder markan waa iska deleedaya ma baahan hadda delete okay assets folder slash waxay ku jiraan images marka halkan aan tagayna waxaan leenahay assets okay folder slash images ku jiraan macnaha okay
kulli positionka ee sawirada siyaalan u sheegina marka sawirka koowaad aan u baahanaa waxa waaye midkan bed oo kale aan u baahanaa ama haddaan doono kulli waa iska fududeyn karnaa bed waxaan dhihi karnaa waa number one bed kulli kan designka ku xigaya waaye bed number 1 hadii tahay jeer ku xigo jeerka asagana waa iska fududeynana waxaan leenahay number 2 sidoo kale waxaan u baahanahay logada iyadu kulli waa ka baxsan tahay halkaas laakiin kan saddexaad wuxuu noo noqon doonaa for solver okay kanaan ku beenayo waxaan leeyahay solver 3 okay that's 3 marka saddexdaas sawir kulli lambaradaas aan siistay hadda waxa ii fududaanaya marka inaan yani aan qoro uma baahni markaan halkan intaas baan ku ekaysanaya marka slash taas baan u dhaxaysiinaya si hadhooti application markii iteration kan ku wado baan lambarada siin doona okay saddexdii waan keenay waxa ii dhiman hal shay oo ah label okay button buttonka label kan siisan doono kulli waa iska default marka uma baahni inaan qoro by now baan ku qori doonaa ayaga marka uma baahni markaas waa iska tagaynaa okay inta soo leesan soma hello okay okay inta marka waxaan keensanayaa kan labaad kulli title waxaan noo ah okay title kana soo koobisanayna halkaan aan keenayna marka waxaan leenahay title is that just save intaas baan ugu filantahay okay midka saddexaad waxaan u baahanahay descriptionka wax yaraan isoo weedaarinayna kan baan ka reebaynaa symbol inta waxaan iska leenahay blah blah just waxaan iska qor kulli waa iska qoraalan rabnaa midka saddexaad asagana halkaan aan keensanaa waxaan leenahay copy komadan halkaan aan ka tirno okay good asagana waxaan noogu qoran solver design okay solver design space ka wada good ayadana sidaas ay noo ahaato marka xoogaa yar qoraalkeeda aan ka yara doonaado kuwa kaleeto si waxay ugu muuqdaan wax yara shishadan button labelka kulli waa iskaga darsanaynaa xoogaa waa kala duwaynaa buttonada button label deetana button labelka waxaan ka dhiganaynaa kaba soo qabo kan waxaan leenahay shop now kulli capitalan ka wada dhigaya si xoogaa shop now kulli programming ahaan uga dhigi karnaa capitalkaas no matter kanaan soo koobiyey halkan aan tagay waxaan leeyahay buy now inay kala duwanaadaan rabaa buy now sidoo kaleeto midka saddexaad isagana waxaan leenahay comma and paste isagana halkan waxaan keensanaynaa kaba soo qaad something waxaad tiraahdaa ama buy now kiisa buy now okay ama view details just view details just that intaasaan ku reebanaynaa marka saddexdii objecti waa noo samaysan yihiin marka very simple halaan baan hadhow iteration ku samayn doonaa iyo qoraaladooda wax dhan waa inoo samaysan yihiin marka halkaas componentigii halkan waxaan samaysanay file oo datada aan kasoo akhrisan doono waxaan samaysanaynaa qaybta ugu horeyso applicationka halkan waxaan leenahay waxaan sameynaynaa app tusaale app just app ama main app macnaha okay main app just yes okay ama main la iska dhaho haddaad doonto .js mainkan marka waxaan rabnaa inaan keenno sfc ama waxaad isticmaashaa kolley rf exportiga noocaas kale main okay mainkan gudihiisa marka waxaan rabnaa inaan dhex keenno dhammaan waxa halkan uga baahan oo dhan okay marka sectionkan koowaad kolley iska ignore garay qaybtan hoose laakiin kan ayaan focus ka saaraynaa kan waa qaybta ugu horeyso waxay leedahay muxuu ahaaye background oo muxuu ahaaye waxay leedahay iraahde header kulay navigation ay leedahay soo jeedaan iyo waxa ku jiro sawirkii qaybtiisa okay marka intaan tagaynaa waxaan sameynaynaa
qaybtan waxaan leenahay main. Okay, something good. Inta waxaan leenahay navigation component. Halkan waxaan ku samaysan rabnaa the navigation component is okay. Navigation xogaa waxaan rabaa inaan fi navigation. Okay, navigation component is halkaan rabaa inaan keensado. Okay, marka halkaan aan tagaya waxaan leeyahay new file. Filekan waxaan ka dhiganayaa nav. Okay, nav.js. Save navigation. Marka waxaan leenahay sf waxaan leenahay rfce. Okay, nav capital aan ka dhiganayaa. That's it. marka halkan navigation kan uu rabaa folder gooniyan geey navigation ka. Marka si hadhooti managementiga ama application ka debugging markaan ku sameynayo ay ugu sahlanaato. Waa la socotaan Soomaa? Mise waa iska socdaa? Okay, navigation ka sidoo kale style uu igu baahan yahay. Folder file waxaan sameysanayaa CSS intaan ka hadli doono Tailwind iyo waxyaabo la midka intaan gaarnay CSS ka caadigan iska isticmaalana. Marka halkan waxaan leenahay nav-style.css. kulay qaabkaas aan iska isticmaalaya. Marka halkan waa ku soo import gareysanaya maadaama aan navigation style u baahanahay. halkan marka waxaan leeyahay // aan iraade // nav sansomein nav style.css. qaabkaas CSS kan loo soo import gareyn jiray. Uma baahna CSS ka inaad variable ku shubto ama from ay waxa soo isticmaash kaliya qaabkaas kaaga baahan. Clear? Yes. Okay, navigation ka dad fiirisaan kulay waxay ka kooban tahay logadii sidoo kale waxa ku jiro saddexdan shay. Okay, logada iyo saddexdan shay ku jira. Marka saddexdaas aan u kala qaybinayna kulay semantics ka kulay HTML ka waxaas kulay mar raba inaan in badan ilaaliyo laakiin kulay waa isku dayna inaan xogaa yara ilaalino. Marka halkaan waxaan leenahay div tan gudihiisa waxaan keeni doonaa logadii. Okay, logada marka intaan keensanaya waxaan leenahay image. logada image-keeda position kan aan dhiganayna. Marka inta logada image-keeda aan raba inaan keensado. logadaas marka hadaan rabo src then logada raba inaan inta keeno. Maxaan sameynayaa? Hello. meeshaan caadi waa. Waxaan sheegayaa position keeta la sama. Waxaan dhihi doonaa waxaan dhahay /assets. waayo kulay filekan waxaa la geyn doonaa HTML kan marka position ka la taala waa. Marka halkan ayadana waxaan leenahay images /logo.png. That's it. logada marka qaabkaas aan ku keenay. Marka halkan waxaan leenahay class aan seesanayna classkan deetana classkan waxaan leenahay logo ama nav container deetana intaas ku jirto macnaha navigation ka. Marka halkan logadii waaye logo container class isagana waxaan leenahay logo container. taas waa logadii deetana waxaa rabaa inaan keeno saddexdii navigation ka ahayd. Marka UL aan isticmaalaya deetana halkan keeni doona navigation ki saddexda hab uu lahaa. Marka maadaama aan rabo saddex hab oo isku eg sadarteed halkan aan ku sameysanahay component kaleeto oo navigation ka buttonskiisa sida halkan iga muuqdo saddexdan waa isku egin Soomaa. hal component aan sameysanaya componentgaas marka reusable ka dhigaa anoo isticmaalayo probiskiisa. Okay, marka halkan aan tagay waxaan leenahay const deetana waxaan leenahay menu tusaale ahaan nav menu ama nav menu deetana halkan waxaan leenahay hal mar qofkaas mobilka agdaanaya xogaa iska xiraya. Okay, marka halkan return aan leenahay hello qof active mobilka daanaya waxaa ugu dhow. Marka halkan return deetana waxaan leenahay ul li aan isticmaalnaa kulay ul ka raabarka kulay halkan noogu sameysan yahay li aan halkan leenahay. Marka li dan waxaan siinaynaa class name deetana waxaan leenahay nav menu. Okay, nav menu. Okay, kan waxaan leenahay class name deetana waxaan siisanaa nav container ama nav menu container. nav menu container kan nav menu item. Okay, just that. Okay, intaas waa noogu filantaa. Marka halkan maadaama halkan aan rabno title in qoraal in halkan soo gasho halkan marka waxaan siin doonaa
label. Okay, waxa halkan lagu soo qori doono waay. Marka props ahaan aan halkan u siisanaya marka. Default aan rabaa inaan siiyo si hadhuuti markay lacal uu qof ilaaw si halkan loogu soo qoro. Marka halkan waxaan leenahay label here. Label, just label. Okay. Intaas markaan save dhaho, deetana halkan aan tagi doonaa. Waxaan keeni doonaa saddexda xababo. Marka igama baahna hadhuuti inaan wax badan soo celiyo. Marka kanaan waxaan leeyahay kaas ku xir. Labelka waxaa siisaa home waa kan ugu horeeya. Copy paste home waxaa ku xigo about sidoo kale waxaa ku xigo contacts just contacts la iska dhaama contacts. Okay, intaas way noogu filan tahay. Waa inta navigationka uu ka kooban yahay intaan ku soo koobna macnaha. Marka kan hadhuuti hadda halkan kinlen uu nagu badan lahaa inaan soo celcelin online. Marka simple intaasaan isticmaal. Marka intaana marka style-kooda siisanaya halkan aan tagaynaa. Waxaan leenahay wax background ah ma rabo padding default ah iga tirin hal mar qofkaas microphone-ka iska xidhay. Sidoo kale waxaan rabaa margin inuusan asigana ku darin. Size-ka box sizing isagana inuu ka dhigo border box-ka. Okay, marka si toos aan u bilowno marka. Waxaan rabnaa halkan maadaama inta ay noo tahay magaciisii oo inoo yahay halka hadaad fiiriso kan background-ku wuxuu qaadan doonaa fadhigan dhan uu yahay macnaha. Marka background-kan color-kan meelaan ku samaysanayna. Okay, halkaan aan tagayaa waxaan leeyahay position-kan kulley root-ka banaankiisa aan tagayaa. Root-ka CSS-kan caadiga ah ayaan halkaan aan tagi doonaa. Marka halkaan waxaan ku samaysanayaa kan wuxuu ku xiran yahay root-ka application-ka. Okay, qaybtaas hoos ku xiran soo ma jidan qaybta hoose ee meeshaas hoos ku xiran yahay. Marka sheekada waxay isku xiran tahay root-kan wax walba oo CSS halkan ku jiro waxaa laga isticmaali karaa application-ka intiisa kale oo dhan. Shay walba jildarinkiisa CSS-ka uu import garaysan uu isticmaali karaa. Clear? Markaas meelaysan. Marka qaabkaasaan sameynaa. Marka halkaan aan tagaynaa kulli waa arki doonaa. Inta marka waxaan rabnaa laba color inaan meeshan ku sii diyaarsado. Marka halkaan waxaan leenahay color kulli mar raba color inaan maato dhan qoro ama taagiisa ama CSS-kiisa aan qoro. Marka halkaan waxaan leenahay dot style yar aan sameynaa primary color. Okay, primary color color-ka primary-ga marka color-kan waxaan leenahay background color that is primary. Okay, primary color-ka muxuu noo ahaa symbol kanaan u tagaynaa haway waxaan u tagaynaa Figma oo waa iga xiran yahay laakiin kanaan isticmaalaya get so enable URL maxaa ahan fashil. Okay, Figma aan tagaya wax yar si kalarada hal mar ugu soo kobiysto. Okay, ujeedan sama color-kan aan rabaa inaan soo kobiysto halkaan aan tagaya color-ka halkaas aan ka soo qaadanaya. Marka primary color-ka waxaa waaye background color-ka. That's it, primary background color. Sidoo kale to primary text color macnaha kan adartan waa color-ka background-ka ama la jeeda primary text color asagana waxaan leenahay color that is that color. Okay, oh sorry kan baa iska soo goobeysanaya halkan aan keeni doonaa symbol that's the primary. Okay, sidoo kale waxaa jira secondary color. Secondary color maxaan isticmaalnaa waxaan isticmaalnaa color-ka noocaas ah violka noocaas. Marka isagaan ku dhufanayaa ama waxaan tagayaa aawe. Okay, color-kaas violkaan soo koobiyanayaa isagana waxaan leenahay dot secondary isagana color secondary saas meenu mase ee u dhexeys color. Marka halkaan waxaan leenahay background color secondary color background-kiisa waxaa waaye noocadan waaye. Okay, that's it. Sidoo kale waxaan u baahanahay textiga then lacala text aan u baahno kulli text uma baahnin san filan. That's it. Marka colorada noocaas waaye. Sidoo kale color waxaan u baahanahay white kulli mar raba inaan CSS fara badan aan qoro. Marka halkaan aan ku diyaarsanayo waxaan leeyahay
text white color marka halkaan waxaan leenahay color is white good sidoo kale waxaan u baahanahay dot and text red no u baahanahay color text red okay red deetana waxaan leenahay color marka tan hadda aan saan u qoraayo xoogaa waxaa loo maleeyaa inay yaraa wax badan inaan adkeynayo hadhowti waxa niyada kugu soo dhacaysaan filaayo hadhowti colorka guduud waa la dhihi karaa blue waa la dhihi karaa cadaan waa la dhihi karaa hadda yacni shaqadan hadda aan qabanayo xoogaa waa yara adag tahay waan badinoyaa laakiinse waqti badan hadhowti kuu manage garaynaysaa waqti badan oo aad u fara badan kuu yaran doontaa waayo meel walba intaad dhihi lahayd colorka guduud ka dhig color guduud ka dhig marar badan aa qori doontaa laakiin simple hadhowti kan unbaa galaaskan unbaa u yeeran doonaa si farta colorkeeda uga bedelno okay marka colorka noocaan aan isticmaalaya xoogaa guduud variable root soo madaxa gashan karto xasan ya variable root yani ma ii ka dhan soo madaxa gashan kartid variable root waa gashan karaa laakiin galaas ahaan inaan ugu yeera rabaa hadda pageka ma raba inaan ka isticmaalo kuwan okay meelo badan aan rabaa inaan ku dhex isticmaalo marka galaas ahaan aan rabaa inaan ugu yeero macnaha hadhowti si simple ah okay kale waa ila arkaysaa ha galaaskan unbaa hadhowti markaan sheega haddaan rabo meeshaan oo kale kaba soo qabo navigationkan colorkiisa inaan white ka dhigaan rabaa soo ma inta unbaa waxaa leeyahay dot text white that's it intaas inay ka qaadataa rabo ma rabo inaan css kiisa inaan tago haddana waxaa kasoo bedela ma rabo asiga okay simple qaabkaasaan ka raba marka inta kuley kalarada sadda halkan waa igu samaysan yihiin clear kalarada kaleetaan u baadana kuley halkaan keeni doonaa simple iyo stylingka kuley componentska qaarkood okay waxaan tegaynaa qaybta navigationka ahayd okay navigationkan tegaynaa horta kan waxaan ka rabnaa marka koowaad horta inuu noqdo textigiisa white okay text white marka dad ma baanin waxaan leenahay text white sidoo kale kan containerka ana waxaan ka rabaa inuu blue ahaado okay halkaan dad fiirisaan blue way background kan soo marka containerkiisa inuu blue ahaado rabaa macnaha waayo laba shay isku dhagan waay kan sa u jeedaan laba shay isku dhagan waa ma ahan laba oo yani isla socota ma aha laba shay isku dhagan waa laba component intaan waa component intaana another component waay okay clear kaasaan marka waxaan rabaa backgroundka inaan ka bedelo background color maxaan haystaa this primary color kana isticmaali doonaa backgroundka okay kanaan soo koobiyanaya halkaan tagaya waxaan leeyahay primary color background qaado simple okay intaas markaan dhaano inta kaleeto styling kaleeto noo harayna iyadan ku dhex sameynaa marka halkaan tagaynaa inta waxaan leeyahay navigation okay navka halkaan ku import garaynaya that's it okay navigationka adoon import gareeyay aan tago js-kana deetana halkaan waxaan rabaa inaan kusoo xiro waxaan okay mainka unbaa halkan kusoo xiri doonaa kuwa kaleeto simple halkaasay kaga hoos raaci doonaa macnaha rootka main kana ugu hooseeyo mainka ku xigo mainka unbay children ka noqon doonaan waxa kaleeto components kaleeto aan rabno marka halkaan waxaan leenahay main that is from main okay from dot slash component slash main okay mainka sa ujeedid meel banaanaan dhigay oo components ah marka laakiin waxa kale components kale tan u baahanay magacooda unbaa inaan sheegno folder ah kadibna stylekooda aan la xareyn doona meeshaas si nidaam ah macnaha nidaam baan ka wadnaa shardi maaya waa iska nidaam okay save intaasaan save leeyahay browserkan tagno okay background colorka iyo qoraalka xataa ujeedaan uu isbedelay white waaye taas marka maxay ku timid wax yar aan jilciyo taas halkaan rootkii waaye okay applicationka haddaad fiirsaan intoo kaleed kaba soo qabo wax yar intaan ku sawiro waxaa leeyahay page okay plain that's it aan weyneeyo marka tan shashada weyneeyo good macnaha waxaa waaye halkan folder aan noo yaal kaba soo qabo inta folder aan noo yaal folder kan waa index okay index.js kulay qoraalka ma qori karo index.js way la fahmaysaa soo index.js root uu leeyahay rootku waxa ku xigo wuxuu leeyahay laan uu leeyahay laantu uu leeyahay waxa waaye main okay main waa clear mainka asagana waxa ku jiro kuwa badan components far badan aan keeni doonaa
navigation ka mid ah nav kadibna waxaa ku xigsan doono main componentiga oo yani componentski oo saddexda ahba ahaa kulley saddexda xabo okay iyo saddexda xabo kulley waa ujeedaan soo saddexda xabo oo hadda aan sameysanayo muxuu ahay code aan sii diyaarsanayo xogtooda macnaha okay kuwaan ka wadaya kan iyo kan iyo kan saddexdan xabo ku jiraan soo saddexdaas xabo aan ula jeedaa macnaha inta okay saddexdaas xabo iyo waxaa raaci doono mid kale to saddexaad oo hoose oo midkan ah okay midka saddexaadna asagana waa kana qaabkan oo kale to saddex intaas oo laan u leeyahay kan waxaa sii hoos yaalo saddex laan okay qoraala hoos yaalo text meel text ah waxaa kaloo ku jiro jildarenkiisan ka hadlaya image ku jiro okay sidoo kale waxaa ku jiro button okay button sidoo kale to kii title-ka iyo description-kana waa ku jira afar ku jirto kanna sidoo kale kanna kan laakiin waa ka yara duwan yahay marka nidaamka horta root-ka aan sameynayno geedka aan sameynayno macnaha noocadan waaye okay shayga aan sameynayno noocaan oo kale waa markii root ahaan loo sawiro marka geedaha naturalka korkor u baxaan laakiin programmerka tree-giisa hoos u baxaya marka root-kiisa hoos u jira laakiin calaamadaha hooseeyaan geedaha naturalkana waxaa waaye root-kii waa hooseeya calaamadaha waa sareeya marka simple root-ka marka index-kana noo ah marka index-kan wax walba uu helo kan wuu siin karaa kan wuu siin kariyaa kan wuu siin karaa wax walba waa la wada siinaya waayo halkaan yeelan soo halkaas yeelan marka intaan dhan daytada style-ka halkaan aan siiyo ayaga dhan waa wada haystaan waayo ayagana halkaan imaan doonaan fahmaysan hello warkaas waa ila fahanteen soo maa waayo style-ka halkaan haddaa si uu qaybin karaa geedaha waa aragteen hoosii waxay kasoo qaataan nafaqada iyo biyaha iyo wax dhan hoos kasoo qaataan caleenta ugu sareysana way gaartaa sax sidii oo kaleeto waa macnaha style-ka halkaan aan ka siinaynaa qaarkood style-ada commonka ah intaan ka siinaynaa deetana ayaga dhan uu siin doonaa macnaha mid walba haddii style-ka looga yaro wuu siinaya qodobkaas waa ilahaysaan rajeynaya okay marka saa darteed kalaradanna saasay ku yimaadeen macnaha qaabadaasay ku yimaadeen marka kan waxaan rabnaa in horizontal uu noqdo kulley stylekiisa asiga gooni aan uga dhiganaa halkaan aan tegaynaa waxaan leenahay navigation stylekiisa gudaha markaan ugu jirno waxaan rabnaa in aan glasseskan soo qaado marka kan aan iska xiro csskan guud ma rabo kan aan iska save garaysto asagana aan iska xiro main asaga kulley waan u baahannahay laakiin kan dambe uma baahan marka clear waa hadirtan saan filaya waa la fahmi karaa marka kan containerkan aan rabnaa inaan display flags inaan ka dhigno okay si labadan shay oo halkaan aawe kan kolley halkan waa hal component ama hal yani diff aan u sameynay kan kaletana waa hal ul ay ku jiraan sooma ul-ka marka halkaan inaan iska geynaan rabnaa okay marka waxaan u sameynaynaa display flags aan ka dhigana marka halkaan waxaan leenahay display flags okay aawe kaban aan isticmaalay marka display flags markaan dhano oo save aan dhano waxaa ujeedaa halkaan ay isla imaadeen sooma halkaan markay isla yimaadaan ayadana waxaan rabnaa inaan kala fogeyno waxaan leenahay justify contexts space between okay space around ma dhahay space between laba space isku mid ah inuu dhaxay marka kan derbigaas uu tagay marka kan containerkan lama hadlayno waxaan la hadlaynaa css-ka guud okay css-ka guud waa indexkana marka waxaan leenahay dhinacyadan xoogaa yar in laga soo sakadan rabo mar walba page walba ama css walba inaan dhaw derbigan ka soo sako dhinacyadan waxaa rabaa tira unique ah in laga soo sakado marka taas intaan ku sameynayna marka waxaan leenahay kaba soo qabo inta waxaan leenahay kor horta 0 iska ahaato laakiin labada dhinac cidii gooni u isticmaasho mooyee waxaad ka soo sakataa kaba soo qabo 30 okay pixel just save haddaad fiiriso laakiin kalarkii uu nooga daray sorry marka kaas ma rabin in kalarka uu ku daro okay symbol intaan tegaynaa okay asiga sidiisaba noo ahaado halkan waxaan leenahay baadin yaraan samaysanayna okay baadin hadhuuti meelo walba aan saas ugu dari doono marka halkan aan tegayna waxaan leenahay baadin ama general baadin general
padding. Okay, general padding waxaa leenahay padding dhinacyada kulley kor iyo hoos kulley waa iska default 0 aan iska leenahay laakiin dhinacyada waxaan leenahay 30 laga soo sikado 30 pixel marka general padding kaanan qaadaynaa mid walba haduutu waan siin doonaa macnaha kan marka waxaan ugu daraynaa general padding just like that. Okay, save wax yar uu soo sikiyso ma kulley hadda waa sidii insa rajeenay way sameeyeen labadanba loogadana xoogaa yar inta uu yara saksan tahay ayadana si gooniyan u sikin doonaa gadaal aan uga celin doonaa marka loogada ay dambeyso kanaan qabanaya kuwana horta saf gelinaya waxaan tagaya halkan waxaan siinayaa dot paste deetana waxaan leenahay kulley markaan line ka dhigaya maxaa la dhihi jiray listiga noocaas display inline mail ساسن اللي يراد inline block no inline block ساهد كل ما حسست مع الله inline block inline كل inline مجرى يعني display character display inline block okay display inline block oh yes nothing واللي ما شقينا كاس UL كوا يعني MI ذا كريسة okay UL كان هذا كديقون okay LI yes LI sorry كلي بدنا CSS بدنا ما يستعمل رالة هذا وقت okay halkan aan tagaynaa waxaa leenahay paste deetana kanaan soo koobiyeenaya halkan aan geenaya just save yes space marka padding yar aan rabaa inuu u dhexeeyo ayagan halkan marka waxaan leenahay padding kor iyo hoos kulli waa iska 0 laakiin dhinacyada ha kala sakadaan something 20 rem ama 30 rem waxaa leenahay dot 3 rem good intaas waa ku filan tahay hal dhibic ram kor iyo hoos kulley waxaa manage garan doono containerkiis containerkan u tagaynaa waxaan leenahay padding asiga waxaan leenahay kor waxaad ka soo skataa 30 pixel dhinacyadana kulley iska 0 save good position xogaa position rasmi u taagan loogadana marka size-ka weynanka faraha badan aad dareemaysid loogadana qaadanayso marka loogadan manage garanayna iyada loogadan containerkeedan ku manage garanayna containerkan aan soo qaadayna waxaan geenaynaa halkan waxaan leenahay dot okay dot that's it marka dot markaan dhaano waxaa rabaa marka inaan loogada yareeyo marka image-ka ku jiraan leenahay taaga image la yiraahdo ku jiro kulley saana taag loo soo jirsanay بس ثانية درت سبيس عليك تعال معناها هل حبة كليان راه ما كل سبيس هذا دون توا بدي كرتا لكن هل حبة كليان راه أساسا ليه كان محله وديس لو هذا وديس كذا حالنا هاي something بطل بيكسل weight كذا height كذا نحلنا هاي something 7 بيكسل إن أو هذا ويري كان مركب في ذنايا هلا هي كان حاضر هذا كي اللغة ما بتعبنا وحن يرينا كون كان سايز كيس يرينا ديتنا اللغة 100% هالكاس كقانا لنا معنا كان مركب حلنا هاي سايز كان كت كان مركب حلنا هاي loogada widthkeeda waa 100% positionkii joogto 100% ka qaadato okay 100% heightkeedana waxaan leenahay positionkii joogto 100% ka qaadato sidoo kaleeto object cover object fit I think inuu yahay waxaan isticmaalnaa cover okay marka hadda xoogaa waa yara yareeyay لكن هل كان انتجنا حلنا وديسكا بودي حاطر هذا 300 او لوغدا لكن ادو وينتهي كاسان يرين اوكي هذا مركا انتانا يريننا حلنا هي 200 فيل وادرتان يعني ماشو ku feel gareynaya sidoo kale to 200 iyo 60 dano 150 intana waxaan ka dhiganaa 60 in hadartan suuragal waa hadartan waa la qaadan karaa mo okay maadaama halkan padding aan ku darnay marabno paddingka waxaan siinaynaa
midkaan siinayna waxaan leenahay adiga waxaan iska soo siki xoogaa okay CO kan zaid uu kaga dhigay kan hal mar background siiyo si aan u ogaado colorka uu leeyahay macnaha intuu ku fadhiyo black oo kale tan soo gate position uu ku fadhiyaa okay anyway intaas haddaan doono waxaan dhihi karnaa align items center okay align items center intaas haddaan dhaano it's enough adirtan clear waa mu align items center marka halkaas navigation-kan uga baxnay marka hadda waxaan ugu xigsanayo midka xigo oo ah qaybtan section-kan marka section-nadan hal component u sameyn doonaa component-gaas isbedbedelaya marka okay marka intaan tagayna waxaan leenahay navigation waan kasoo dhamaanay right click new folder this is waxaan leenahay sections okay sections ama section sections waxaa dantaba dheh okay kale halkaan navigation is ayare kale namingka no problem kana halkaan furnayna waxaan leenahay file waxaan rabnaa section container okay halkaan marka laban u kala qaadi rabaa xasuusnaada section container.js aan ka tagay .js clear mid kala sameynaya folder kaleeto file kaleeto and css kiisana halkaan ku sameysanaya section dash scss ama style .css sidoo kale halkan waxaan rabaa mid kale inaan sameeyo midkan kaleeto kulli waa arki doonaa sababtaan ugu baahana halkan aan hortaan qoro fsc ama erfe kulli component-ga section-kii aan soo import garay marka halkan style-kiisa asigana aan soo import garanayna waxaan leenahay import datana dot slash section style dot css clear markaan intaas sameyno kulli hadda waxaan u baahannahay halkaan haddaad fiiriso fidi waxaan rabnaa inaan intaan keenno marka intaana hal mar ku si yani hard code aan ku sameynaya si nashqadaan uga qaadano deetana hadhuuti waa reusable aan ka dhigana marka hal mar intaan tagayna waxaan leenahay section container class deetana section dash container okay section container oo bixinay halkaan marka waxaa inoo imaanayo saddex shay okay inta waxaan rabnaa iraade laba yani component ay imaan doonaan qaybtan sectionkan leftigan iyo rightkan soo jeedan left iyo right baana labadaas ku kooban yahay marka intaan tagayna waxaan leenahay div okay sorry divkan gudihiisa marka waxaan ku sameynaynaa labadaas shay marka halkaan hard code aan sameynaa marka koowaad kadibna yani waa fududeyn doonaa marka halkaan waxaan leenahay class name deetana inta waxaan leenahay kulli left side ama left side section ama left side container taas kale iska wada koon deetana halkaan waxaan keensanaa saddexda shay aan u baahannahay marka halkaan waxaan rabnaa h3 camal ama h4 deetana halkaan waxaan keensan doonaa qoraalka tusaale qoraal yaroo waxaan iska keenayaa waan leeyahay kulli kana dirtaan weli ma isticmaalin laakiin dibaan ka isticmaali doonaa kana iska soo koobiyeysanaya halkaan aan keensanaya waxaan leenahay something like that okay sidoo kale waxaa noogu jiro halkaas paragraphka asagana sidoo kaleeto json-kan tagana waxaan kasoo koobiyeynayaa intaan oo kaleeto copy intaan ku daynayaa simple sidoo kaleeto waxaan u baahannahay button okay buttonka asagana kuley hard code in hadda sameynayo laakiin waan fududeynayna halkaan buttonka marka waxaan leenahay kaba soo qabo shop now kuley style aan u rabnaa inaan u sameyno marka style deetana waxaan dhihi doonaa waxaa waaye stylekiisa tusaale button okay button style just button style la iska dheh simple kan asagana waxaan leenahay text style ama hadhowtii kuley sectionkoodaan ku manage garaynana ama kuley waa iskaga bixinana
halena style class name iyadana waxaan dhahnaa description description yeah, description hello awal maqlaan okay sidoo kale waxaan u baahanahay title-ka isagana kana soo koobiyeysanaya halkan aan tagaya title okay just that title intaas markaan iraado waa hadda head code nan ku sameeyey right side-ka isagana waxaan leeyahay div oo ah right side-ka maanaha kan waa left side-ka iyo right side-ka marka same way ayadana kaas unbaa iskaga daynaya oo ama side just side container kulle hadhowti left iyo right ayada u kala bixi doonto it's no matter inta markaan tagno inta waxaan leenahay marka image ama image containerka div inta ku samey waxaad tiraahdaa image class name and image container just like that inta marka image aan rabaa inaan keensado imageka waxaan iska isticmaali doonaa kulley kuwa halkan ku jiro marka halkaan waxaan leenahay hal xabo un baan kan koowaad oo kale beedkaan iska isticmaalaya waxaan leeyahay src deetan waxaan dhahnaa slash assets slash images slash 1.png okay intaas markaan dhahno kulley wax kale inooma haraysaa filaa save marka halkaan sectionkan aan koobiyeynayaa waxaan la tegayaa mainka kulley navigationku ka hooseeya sanfilaayo halkaan marka paste deetan halkaas ku daynaya halkaan haddaad fiiriso kulley importiga uu iga rabaa aan soo import gareeyo kan soo import gareey that is something happened think button iyo waxyaabaad sheegaya sek kan aan ka saaro good hadda waa yimid laakiinse markaa kan soo celiyo aan tagna halkan button horta saana loo qorjo samayn masaxan yahay button yes waa saxan yahay kulley errorkan arkaynaa wuxuuna leeyahay errorkan wuxuu leeyahay above the button okay meeshan glass name aan ka rabayaa style aan iri meeshaas ugu haystaa save okay kanaan ka tiro save okay hadda waa kanaan mu jeedino hello waa loo jeedaa masaxatan culum waa soo jeediyaa aga yar adkaystaa waa soo jeedaa okay marka kulley waxaa ugu muhiimsan intaanay ahaayeen kan haddaan stylekiisa aan sameyno symbol inta kaleeta asagoo kale qaadan doonaan marka kan un baan toosinaya marka waxaan leenahay inta okay kan un baan stylekiisa hagaajinaya kulley backgroundka waxaan ka rabaa halkan inay noqoto background isbedbedelayaan ka rabaa marka backgroundka si uu isku bedbedelo halkan waxaan keensan doonaa background color waayo halkan haddaad fiiriso styleka background colorka waa bedbedelan yahay mar halkan blue waaye kan waxa waaye white kan blue kale waaye kan white kale waaye soo marka maadaama uu saas u kala bedbedelan yahay waxaan rabaa inaan fududeeyo oo halkan aan ka dhigo kulley probis waan aragnay probis waxaa loogu talagalay in outside-ka ay ka bedesho componentiga okay outside-ka in laga manage gareeyo componentiga halkaan marka waxaan leenahay pg ama background color pg color marka background color ka dirtaan by default waxaan siinaa primary color-ka okay cs-ka maxaa noo yaalay primary color okay primary color-ka aan siinaa kana soo kodiysto halkana base ku leh primary color-ka okay sidoo kale kuwan kaleetana oo u soo jeesan doonaa waxaa kale u baahan yahay si qorto sectionka wuxuu u baahan yahay title sidoo kale wuxuu u baahan yahay description sidoo kale wuxuu u baahan yahay description sidoo kale wuxuu u baahan yahay button label
okay button label iyo wuxuu kale u baahan yahay mid saddexaad maxaa waaye image image url hello علم كلية اسكو سعودية أنا ساحتين إن كل مكوراي إسلا مودي قلنا حفص مجوكته لو حوجا باشي للجيبي إن شاء الله سي حوجا هو هاي وحي نوبي رسالنا هذا الشيب وده ترى أنا راح أقوم هاي أنا أتكلم قنتينا ما حوجا بورن إيه تباشن لكن حارة التكنيك جر إن أنا إذا تصيو أو أن implement جرينا وحيابا عن برامي مركا كل هذا واركتن سارجينا أنت أنا هذا سميني halka marka waxaan siinayna waxaan rabnaa inuu background color mar walba isbedelo marka halkan waxaa leeyahay background-ka si uu isku bedelo waxaan isticmaali doonaa template literal sida string-ga caadiga ma ahayn wuxuu u baahan tahay calibrate inaad geliso marka halkan waxaa leenahay background color okay background ama bg color background color-ka simple halkaas isku bedeli doona very simple kulay button color-kiisa isma bedeli doono laakiin se waxaan isticmaalanaa button color-ka muxuu ahaa button color siga kulay buttonka component gooniyan ka dhiganayna halkaan aan soo qaado halkaan aan tagayaa ama positionkan folderka gudihiisa aan tagayaa waxaan leeyahay file ama waxaan leeyahay button okay button dot yes this is another component rfec this is button just like that marka buttonkan halkaan aan keensanaa si xogaa asiga aan u manage garan karno mar walba marka halkaan buttonka mar walba hal color ma aha soo ujeedaan halkan ada blue way viol way laakiin marka halkaan joogo blue uu noqon doona marka asigana waxaan ka dhiganaa color isbedeli kara macnaha pt ama background color pg color sidoo kale qoraalka dhexdiisa ku qoran oo isbedeli doona marka halkaan waxaan leenahay label okay label ayadana labelka default aan iska sanaya label ama click la iska leena bis maadaama button uu si default hadii laga tago click oo ku soo qoranto macnaha marka inta waxaan rabnaa inaan bedelno kan waxaan sameynaynaa template literal iska ma dhigi karo waxaan u baahanahay calibration la dhexgeliyo okay calibration la dhexgelinayna halkaan aan furana kaas deetana halkaan ku soo xirana inta bracket deetana sorry bracket kaas marabo kan default style ka waaye aga halkaan aan tagayna waxaan siinaynaa midka background-ka isbedelayo asaga halkaan aan siisanna halana pg color marka buttonka default color-kiisa waxaan ka dhiganaynaa primary color-ka okay primary color-kana aan ka dhiganaynaa asagana by default color-kaas iska qaato haddii laga tago macnaha okay intan label-kan ku bedelaynaa halanahay label save kan markaan soo qaado intaan la imaan doonaa away meeshaan uu yaala sooyin intaan paste ku leeyahay that's it ayaan halkaan ku soo import garay labelkiisa muxuu noqonayaa waa bedelaya waxaan ka dhigayaa shop now okay shop now that's it marka stylekiis kaliya ay dhiman intaan hadda style garay application-ka waa boqolkiiba 70 waa dhameen ama 80 waa dhameen wax yar aynu dhimanay markaas dulqaad yar la yeeshay inta marka ku beenaya waxaan tagaa style deetana kulay box sizing iyo waxyaabaha la midka ah inta xataa uma baahan inaan ku jirno waxaan geysan karnaa cut waxaan geysanaa root kan geysanaa index-ka okay halkaas ka sii hooseyso halkaas aan dhiganayna marka intaan tagaynaa kulay style-ka waa inoo sidiisii soo ujeedid navigation waa inoo hagaysan laakiin qaybtaanaan xoogaa yara qalqaldan marka waxaan tagaynaa away okay waxaan joognay section background color-kiisa rabnaa inaan horta background color-kiisa waan bedelnay sidoo kale color waxaan rabnaa contract la ah background si qoraalkana uu soo baxa macnaha marka halkan waxaan leenahay text color text ama text color colorka textiga asagana waxaan ka dhiganaynaa colorkan unique noo ah colorka marka waa text colorka
white macnaha okay text color white mar walba white muu noqon doonaa may mar wuxuu noqon doonaa text white laakiin primary yes primary ganaan rabnaa inaan hadda isticmaalo by default primary laakiin haddartaan secondary استعمال ضانا secondary button كوباية yes halkaan secondary aan ka leenahay meeshaan text kulley colorka waxaan contrast waxaan noqonahay textiga hadduu background blue yahay colorkan defaultiga kana u qaadaynaa si hadhowti u yarasaalnaa markanaan siinayna by default colors marka colorka iyo waxay iska bedelaya maraba title inuu colorka wax ka bedelo waxaan rabaa kan kaliya inuu wax ka bedelo descriptionka okay halkaan aan tago waxaan leeyahay kan for deetana haddaad doonto space ka bax kula xir haddaad doonto plus text color leedahay simple concatenation ku samey okay text colorka descriptionka iyo text colorkiisa buttonka asigana contrast u baahan yahay marka laakiin se waxaan samayn karnaa in wuxuu ahaay aan halkaan dhahno button gudihiisa inaan contrast ka sameyno sheeko noocaasa waan awoodnaa inaan dhahno laakiin simple intaan tagaynaa waxaan leenahay background colorkiisa haddii ay tahay blue oo colorkaas yahay contrast colorkiisa white aan ka dhigaynaa simple si oo application ka dhowt noogu fududaado marka intaan waxaan leenahay if okay text color kaas halkan waa ka saari rabaa macnaha kan aan kasoo leeyahay intaan la imaanaya marka if else kulli aad taqaanaan isticmaalana inta waxaan leenahay const ama const text color or ama meeshiisaan ku dayanaya laakiin halkaanaan yani contrast ku sameynana if kulli faaruqan ka dhigaya marka koowaad colorkiisa saab white samaha yeah default colorkiisa saab white qoraalkii black waaye soo ma jeed defaultiga okay black waaye marka halkaan aan tegayna waxaan leenahay haddii background colorka hadduu la mid yahay primarygan okay primarygan hadduu la mid yahay waxaan isticmaali doonaa waxaan isticmaalanaa intaan tegayna halkaan unba waxaan leenahay text color waxaad ku shubtaa haddii kaas uu yahay colorkaas hadduu colorkaas yahay waxaad ku shubi doontaa terminal operator aan isticmaalayaa okay waxaa lagu shubayaa colorkaas hadduu yahay backgroundka waxaan ku shubaynaa colorkan white kaan isticmaalanaa oo cagsigiisa contrast uu ku yahay kaas marka inta simple kaasaan ku daynaa haddii kaleeto uu color kaleeto yahayna waxaan isticmaali doonaa colorka secondaryga okay raade hadduu cagsigeeda yahay waxaan isticmaalinayaa colorka primary color textiga okay kan okay color waaye yes intaan tago aaway kanaan tagay waxaan leenahay okay haddii cagsigeeda uu yahay kulley cagsigeeda waa white hadduu yahayna waxaan isticmaalanaa kan okay oo black colorka oo aan primary colorkeena oo textiga nooca textiga aan isticmaalanaa marka halkaan text color same contrast uu la noqon doonaa okay haddaan save iraahdo maxaa isbedelayo very textiga isla markiiba uu qaatay colorkaas laakiin kaba soo qabo halkaan aan bedelay kaba soo qabo intaan tagay waxaan tagay mainka markaan tago waxaa ra page color ama background colorka waxaan ka dhigay kaba soo qaad inaan ka dhigay kaba soo qabo white camal inaan ka dhigay okay white background ima samaysna saan filaayo okay intaan waxaan leeyahay white background kulley background white waa iska default laakiin waa iska qoraynaa kulley pg white symbol marka halkan background color white okay kana marka soo qaadanaya kaba soo qabo haddaan kan lacala aan bedelo aawe mainka yes mainka kanaan bedelay waxaa yidhi white ka dhig colorka muxuu noqon doonaa cagsigiisa soo ma jeed cagsigiisuu noqonaya marka sidaasaa marka ku daystay marka defaultigaa iska qaato muu baahna inaan assignment ku sameeyo kaas textigan kulley titleka mar walba waa same way titleka maadaama reusable uu yahay oo marar badan aan u baahannahay same halkaasuu inoo yaalaa asiga
awi navigationka colorka kan waxaan siisanaa red intuu inoo ku samaysan saan rajeynayo marka text red okay copy deetana waxaan tegaynaa halkan waxaan siinaynaa that color save hojida soo colorkii u qaat buttonka gudihiisa titleka waxaan rabnaa ayadana contrastigan oo kale inay isku noqoto symbol intaan u baan koobiyeysanna functionalitygan waxaan la aadaynaa button gudihiisaan tegaynaa waxaan leenahay halka ku sii daa marka inta buttonka waa la siin karaa text color waa lagu soo dari karaa laakiin haddii laga tago iska isticmaalo noocan macnaha ama contrastiga noocan isticmaal marka inta xujo yaraan gelinaynaa si yani aanan mar walba waxba looga bedelin qofka hadduu rabo waxba uu ka bedelin karaa laakiin haddii undefined uu yahay macnaha haddaanan waxba lagu soo shubin meeshaan istaraatiijiyadan isticmaal haddii laakiin wax lagu soo shubo isticmaal waxa qofka uu kusoo shubo u sameey qasbi macnaha adiga waxaa okay kanna intaas isku daydaysanaynaa clear intaas waa la fahantay ma laakiin meesha waxaa jirto xalay waxaa iri waxaa jiro waxay yiraahdaan dry okay dry don't repeat yourself man dry yes dryga marka waa jibnay waa validation aan ku sameynay soo waan ku xadgudubnay marka xadgudubkan si aan uga bixino waxaan rabnaa halkaan aan tegaynaa waxaan sameysanaynaa function shaqadaas noo qabanayo okay halkaan aan tegaynaa waxaan leenahay contrast I think kulay color contrast colors okay meeshaan marka waxaan ku sameysanaa function oo exports ah default ah okay ama exporti deetana function kan ku sameysanaa defaultigiis marmo function deetana waxaan dhihi doonaa contrast kulay inaan magaciisa qaldaan u malaynaya anyway muhiim maaha marka kulay kalarada inuu contrast lay ka dhigaan rabnaa marka halkaan aan tegaynaa gudihiisa halkaan marka waxaan siisanaynaa intii haddartan aan wadnay intaan paste ku leenahay sorry aan soo qaada kan aan soo qaadaya cut ama anyway intaanaan soo qaadanaya cut aan leeyahay halkaan aan tegaya inta markaan tago functionka mar walba wuxuu celin doonaa return something like this marka return waxaan leenahay return hadiiba aanan haddii wax laga bedelo colorkan celiyaan leenahay okay colorkaas oo kan contrastiga celi haddii kaleta oo aan haddii yani qofku wax soo gashtana color rasmi ah quduu qofka keensadana waxaa celisaa text colorka uu qofka leeyahay marka halkaan waxaan siinaynaa text colorkan copy taa siinaynaa right saas ولا فهم مثلا سمع كود كان قرأ اوكي هلو انت انتجينا مركا انت مركا تجينا حالنا تكست كلر مر والبا وحاسسه كونتراست اوكي فانكشن كي و سو امبورت جري سو جديد هل كانوا ماضي هل كان مركا حالنا هي تكست كلر ذاتس ات اوكي مر والبا كلر كاسيغا اساس ku siin doono ama haddii color la soo geliyo colorkiisu siin doona haddii kaletana wuu ka din doonaa marka functionkana buttonkana symbol intaasoo kale u baahan yahay waxaan dhan marabno ifteedaba intaasoo kusii daynaynaa symbol okay marka hadda safe haddaan dhahno kolley meeshaan error ayuu siinayaa kolley meeshaan contrast equal kolley saddex equal muraba I don't know function ku ka like why contrast is undefined sorry contrast is undefined kulli halkaan button kumaana soo import garan halkaan tagaya xalay import that's it marka maxaa kale to cilada kale haysto waxa way gudaha contrast color marka ku jiro waxaad isticmaashay yani saddexda equal isticmaal uu leeyahay macnaha si haaga ugu qasbaya marka okay saddexda equal sorry wili undefined wili taalo bg color sorry halkan bg color aan isticmaalaya marka text color ayaan ama okay inta bg color sorry inta bg color kan wax walba ku dabaqoona macnaha
halkaan marka waxaan leenahay bg color intana bg color kulay ama waxaan leenahay inta text color kana hala soo baas galay okay text color marka no taas ma rabo waxaan rabaa fikrad ahaan waxaan rabaa macnaha bg colorka la soo geliyo waxaan u rabaa in muxuu ahaaye in la soo celiyo معناه text color okay sorry انت حالنا text color iyo bg color labadaba soo galiyaan lana bg color marka hadii meeshan uu text color haduu faaruq yahay kaas isticmaal hadii uusan faaruq ahaynna asiga celi okay that's it macnaha okay intana safe leeyahay aan tageynaa sectionka intana sidoo inta waa bg color text color iyo wuxuu qaadanayaa bg color markaan gaana halana bg color background colorka okay kanaan koobiyey waxaan tagayaa buttonka asagana intee kala siinaya mana si xoogaa uu contrast uu kaga dhigo marka halkaan buttonka haddaad fiirisid colorkan waxa muusan ka bedelin waxaan rabnaa colorkaas inuu bedelo uu ka dhigo white camal inuu ka dhigo marka inta pg color gelinay laakiin marno pg color waxaan rabnaa text colorna inaan raacino macnaha okay intaan tagayna waxaan leenahay plus ama kulley concatenation samay ama mid kale u fur isagana is enough marka halkaan waxaan leenahay paste that's it marka contrastigiisa inuu ka dhigaan rajeynaya so backgroundka wide oo ka dhigay laakiin sorry so halkaan contrasty okay hadii uu background kaas yahay text white hadii kaletana kaas ka dhig marka dartaan colorka uu soo celinaya marka maxaa waaye markii buttonka la joogo lock waxaan leenahay textiga okay text colorka la soo siiyan raba macnaha hal marna arko okay text white la soo siiyey laakiin backgroundkiisa black white something's wrong macnaha waxbaa qaldan sorry halkaan space inaa u dhexaysiiyo waayo labada text isku dhegan labada text markay isku dhegan yihiin means glass kale gooniyo noqonaya marka space aan u dhexaysiinaya si labadaas text u kala baxaan safe simple hadartaan ujeedido kalarada waa inoo hagaagsan yihiin okay stylekii kalaan samaysanaa hal mar labadan baan isdhaafinanaa that's it applicationka mucdamkiisa waa isku dhamaata markaas marka intaan tagno waxaan tegaynaa sectionkan tegaynaa section gudihiisa markaan ku jirno kan iska xir button iska xir waxaan rabaa kan inaan manage gareeyo safe sideeda ay ahaato marka css-kan iyo halkaan aan rabaa inaan isku manage gareeyo marka kanaan tagaya waxaan leeyahay section container muxuu ka kooban yahay paste halkaan marka wax qoranayna waxaan rabnaa marka halkaan waxaan rabnaa mar walba in uu noqdo magaciisii display flags okay laba dhinac oo isku mid ah inuu ka dhigo marka halkaan aan tagayna waxaan leenahay display flags justify contents space between ama space around okay dhinacyada space xoogaa ka soo skado marka dhinacyada waxaan rabaa space isku mid ah inay ka soo skadaan waxaan sameynaa okay simple kii data navigation ku sameynayay general padding kan ku darana lex kana soo koobiyeysanaya halkan aan tagi doonaa general padding save general padding markuu soo dhaqaaqan line rasmi ah wada qaateen soo yeah good marka waxaan rabnaa marka qaybtan kaleeto textiga inaan ayadana maamulno ka hor intaanan taas ka hadal waxaa rabaa wax yar inaan isla aragno ma samayn karnaa reverse kan cagsi ma ka dhigi karnaa kan anagoo css ka joogo cagsi ma ka dhigi karno yeah cagsi waa ka dhigi karnaa soo okay
Yeah. معناها عكس يعني ربع أنا كديجو items كدرتان سان ويا لنا سوا إن عكس أنا كديجو okay دايرة direction flux direction okay flux direction row reverse دانبا safe عكس نوع سوا marka taas waxay ii sameynaysaa kuwa qaarkood in hadhowti aan isla dhaafsiyo marka kan asiga component gooni aan ka dhiganaya style gooni aan ka dhiganaya marka halkan waxaan leenahay sorry reverser okay reverser kana ii qabanaya shaqadaas marka hadhowti midkan uga baahanaya in reverse siiyo kan un baan u baasi doonaa macnaha save kan aan save garay hal mar intaan ku tijaabinaya kan halkan aan iska dhiganaya soo qab reverse was dhaafsama marka haddaan ka dhaafo reverse ma noqonayo clear good marka kana u gudubno sectionka un baan style siinana halkan waxaan leenahay dots okay padding okay padding so waxaan leenahay 10 shay walba gudaha u sokay good I think xoogaa inuu ka yara duwan yahay yeah waxaan rabaa kan inaan halkan keeno marka inta haddaan raado background color tomato si waxay ugu muuqdaan good qoraalkana waxaa rabaa marka qoraalkan ku jiro waxaa rabaa inaan hoos u dadejiyo qaybta hoos inaan geeyo marka halkan symbol waxaan iska gashanayaa div si wax yar aan u yara qisho macnaha wax yaraan rabaa inaan shaaftayo safe intaas ayay ahaato marka kanaan u tagaya waxaan leeyahay sectionkan display flex okay flex kuley asiga display flexing gooniya ma sameynayo laakiin waxaan ka rabaa justify align items center inuu iga dhigo macnaha centerkaas uu iga geyso ma jidan marka very nice position aan rabo waaye marka tomato-gan iska saaro clear marka positionkaas waa diiday marka waxaan rabaa textigan title-ka inaan wax yar textigiisa aan maamulo dot title title-ka waxaan ka rabaa in uu yacni fartiisa fonti size-kiisa inuu noqoto 1.3 rand good ayadoo iska okay laakiin wax ka hooseeya inuu xoogaa iska soo sokeeyo haddaan ilaahdo margin bottom meela ilaahdo 10 pixel sinki wax yaroo soo sokeeyo soo good 10 pixel waa iska okay waay kan sectionka inuu yaraadaan rabaa sectionka inuu weynaado ma rabo widthskiisa marka waxaan leeyahay widthskiisa waa mar walba section walba wuxuu noqon doonaa widthskiisa aad u weyn yahay saan filayo laakiinse inuu gaab u dhexeeya rabo marka halkan gaab ma jiro gaab I think inuu jiro inta haddaan dhaho 30 ama 40 pixel gaab u dhexeysiiso gaab uu geliyey marka textigan div yaraan usoo sameyso ma divkanaan la hadlayo marka waxaan leeyahay class waxaan leeyahay text manager text container just that intaan copyinayna save halkan aan tagayna waxaan leenahay halkan gudaa deetana symbol widthskiisa waxaan ka dhigaynaa waxaa tirahdaa horta background color aan siiyo intuu widthskiisa leegaan fiirinaya sida uu yaalo macnaa okay kan commentiisar save okay qoraalku la egyaa macnaha soo ma marka widthskiisa inaan yareeyaan rabaa haddaan yaraado 50% wuxuu noqonayaa intaasuu noqonayaa wuu yaraada xoogaa soo ma laakiin waxaa moodaa pageka inuu aada waasac noogu yahay general paddingkaan badinayna marka simple general paddingka waxaa leenahay 40 meesha ka ahayd 50 ka dhig xoogaa waxa dhexda usoo dhaweey usoo dhaqaajiyey saanaa moodo aaraada 100 good
xoogaa dhexda wada keenay pageka xoogaa nagu filaya markaan page waasac u ahaan oo shaashada ama 140 badhe good saa dartaan waa aad u qurux badan yahay sanfly marka kana marka waxaan leenahay 80 haddaad doonto dheh ama boqolkiisaba ama iska yara ama 80 kiisa is good marka backgroundkana iska saaro clear qoraalkaas marka text align center qoraalka inuu dhexdhexda aadaan rabaa laakiinse textigaas titleka kama rabo inuu ka reebaan rabaa titleka marka titleka caadi in la hadlaya halay title text align leftiga geyso laakiin kan kale xoogaa madaxu kusoo baxaya bal iska daa sidiisaan noogu joogo sideedaan ugu joogo marka kan paragraphkana wax yar la hadlaynaa oo in uu yara kala baxaan rabnaa paragraph ama descriptionka halkaan tagayna waxaa leenahay muxuu ahaye sidaan ku dee isaga waxaa dhahdaa later spacing ama text spacing inuu ahaa umalina later space yes waxaa rabaa in udhexeyso 0.5 rem camal haddaan iraado maxaa u noqonaya aada u weynay waxaan leenahay 2 pixel ama waxaan tiraahdaa 1.5 ama waxaan tiraahdaa 1.2 good hadda waxoogaa waa yar run yahay saan filaya marka kulley qeybtan waa inoo sidaas wax yar marka hoostiisa waxaan rabnaa inuu waxa isku hooseeyo inuu iska sakiyo asiga markanaan soo koobiyeynayna waxaan leenahay iska sakiy wax yar waxa ka hooseeyo batanka marka xoogaa yara lasoo soo sakiyey marka batankan manage garaynana marka haddana batanka symbol batanki wuxuu inoo yaalaa halkan batanka button style button bal css la yiraahdo leeyahay asigan soo koobiyeysanayna waxaan tegaynaa halkan aawe sectionka un baan ku asiga ugu darana hal xabo waa maadaama halkan marka batanka waxaan leenahay background kulley background way noo leeyahay laakiin border iska dhaafaan leenahay border maxaan ka dhiganaa border ha ahaado asina ha u ekaado waa saas u fiican yahay kulley border nan haddaan dhahna ka simple mo nan haddaan dhahday ma laakiin colorka contrastiga kii aan rabnay soomaaliya secondary aan gaano waaye marka ma ka rabno inuu primary qaato halkaana marka waxaan leenahay background color ama bg color iyo secondaryga maxaa waaye symbol waxaan tegaynaa secondary kan waaye kan violkaas secondary marka halkaanaan ku daynaynaa safe haddaa halkan fiiriso backgroundkaas u qaata laakiin colorkaas qoraalka caddaan inuu noqdaan rabnaa ma rabna colorkaan kaleeto inuu noqdo marka halkaanaan ugu sheegaynaa marka waxaan leenahay title labelka waxaan ka rabnaa inuu noqdo ama text colorka white inuu noqdo okay ayraade text dash white symbol qoraalkana waa kaasa soo jeedi marka batanka la manage garaynana marka halkaan aan tegina waxaan leenahay padding kor iyo hoos horta waxaa kasoo sakataa 10 pixel dhinacyadana 20 pixel inta kulantiisu dhexaysa safe okay dhinacyada xoogaa yaran ku daro xoogaa ayraado konton ama something adii paddingka intaasoo kaleeto or mid kalaan samayn karnaa widis ayaan siin karnaa waxaan dhihi karnaa widis is 100% meesha aad joogtid widiskeeda dhan qaado marka halka haddaad fiiriso widiskeena xoogaa waa yaro wen yahay intaa marka waxaan leenahay ka marka paddingka maadaama halkan iyo 10 tahay inta waxaan rabnaa inaan ku yaro darno waxaan leenahay 15 good marka dhinac walba 15 ha ka qaato intaas waa nagu filantahay sidoo kale border radius aan u baahnay border radius asigana waxaa leenahay 10 pixel just that okay sidoo kale kor kasoo sakaan leenahay margin
margin top is kala soo qabo 10 pixel 10 pixel ayuu kor ka soo sakada soo ma yes kulli hadda waa shabahnaysaa filaayo horta waa weynay ya horta hamar waa weynayno yes fartaan weyneynaya good inta 8 aan ka dhigo 5 good fartaan weyneynaya halanahay font size font size 1.1 rem tusaale ahaan farta xoogaa weynaatay font weightna waa u baahanahay waxaan ka dhiganaa bold good hadda waa caadian wala keena rajeyna inuu la mid yahay laakiin kaas font weight ma lahayn laakiin waa iskaga qurxoon yahay kolley waa ku daysanaynaa inta 7 camal aan ka dhigo border radius inta 10kiisa inta 10kiisa ay ahaado laakiin inta waxaan rabaa inaan ka dhigo 7 camal si uu geesa xoogaa u yaraado good intaas marka intaas tahay hal mar sawirkan ay iska toosinaya wax yar sawirka waxaan tegaynaa side container kule waa iska sidekiisi laakiin kan waxaan leenahay adiga dots that containerkan waxaan leenahay widthkiisa mar walba wuxuu la ekaan doonaa 80 kan uu yahay kaleeto tusaale ahaan kaasaan siiyo save 80 good background aan fiirinaynaa sida uu yahay backgroundkiisa ama size-ka uu qaatisa ma aragna good halkaasuu keena soo ma marka sariirta kulley haddaan halkaas keenno way la soo dhaqaaqi doontaa aan aragno kanaan soo koobiyeynayna waxaan keenana halkan dot paste okay waa arkaynaa kulley halkaana marka waxaan leenahay imageka halkaas ku jiro waxaad siisaa widthkiisa is 100% of the container heightkiisana sidoo kaleeto aad ula yaryaraaday soo aad ula yaryaraaday marka ma rabno inta waxaan siisanaynaa tiro rasmi ah ama symbol kan sidiisaan ku daysanaynaa waxaan leenahay sariirta kolley sizekeeda iyadoo baa kordhinaynaa waxaan leenahay kolley 500 oo pixel ilaa iyo 500 oo pixel kolley waa dheeraanay ama kolley kan sidiisaas ka dhaano laakiin kanan height yar siinayna waxaa leenahay heightkiisa waxaa ka dhigtaa 300 ama 300 oo pixel save sorry width asagana waxaan siisanaynaa waxaan siinaa something 100% ama sorry waxaa yaraahdaa 500 oo pixel dhererkan waxaa yaraan ku darno 350 okay it's good hadda saan filaayo marka kan backgroundkan aan ka saaraynaa that's clear okay marka waxaa rabnaa navigationka hal mar aan ku laabto navigationka kulley halkan haddaad fiiriso xoogaa yaruu kor ka soo siksan yahay wax yaruu hoos soo siksan yahay marka waxaas yarkaan iska soo sikanaa marka halkan aan tegin waxaa leenahay top is xoogaa mood galaya okaas marka baadinka waxaa leenahay 30 pixel baadin top that's good hadda soo ujeedaan okay واضح سمع okay intaas markii noo samaysan tahay aan tagna bal hal mar mainkan tagayna kanaan koobiyeynayaa based halkan ku leeyahay background colorka waxaan leeyahay waxaa tiraahdaa kaba soo qaad inuu yahay something white okay waan filaya inuu white ii samaysan yahay or yes PG white background color white kaasoo kale aan soo qaat aan taga mainka
waxaan leeyahay kaas ku sii daa save hadda halkan fiirs maxaa imaaday asigoo wide ah ku xigsiya soo ma reverse aan rabaa inuu cagsi ku ahaadaan rabaa maxaan sameynayaa symbol kanan waxaan u sameynayaa is reverse okay ama reverser ama is reverse caadi su-aashaas buu weydiiyey is reverse marka false waay marka koowaad si by default ah false inuu yahay laakiin halkaanaan tagaynaa inta markaan tagno waxaan siinaynaa bracket kaasaan furaynaa marka reverse iyo inuu kale uu yahay halkaanaan ku sheegi doonaa marka kanaan soo qaadanayna true haddii uu yacni true uu yahay haddii uu true yahay qaybtan kala haran garayo oo ah reversiga kelimadan reverserka okay hello mar qofkan agtiisa laga buux qooyo caaga mudiska galaya marka muxuu ahaaye marka reverser aaway browserkii hakana marka reverser waxaa rabaa halkan is reverser halkan waan weydiiyo waxaan iri halkan haddii false waa dirtaan halkan waxaa la rangareyn doonaa markay halkan true tahay okay marka halkan true tahay kan la rangareyn doonaa marka hadda safe aan leeyahay same way kulley sidii u muuqdaa laakiin inta markaan tago oo aan dhaho mainka is reverse waaye camal haddaan u yara keliya true ku shubi doonaa safe aan leeyahay muxuu noqonayaa cagsigii u noqda soo ma jeed clear Yeah. okay wax yar baadin yaraan rabaa inaan containerkan ku daro baadin yar oo kore baadin also baadin waxaa tiraahdaa baadin top tusaale ahaan baadin top something waxaa dhahdaa 20 pixel waxaa yar kasoo skadaa moodaa mise anaa umaleeyo konton aan dhaho oo kasoo ska sooma good waadix hallo Yeah. markaad dirtaan halkan is reverse landayo waa ama true gale ama ka tag is no matter intaas waa isku meesha macnaa haddaad intaas haddaad false aad geliso laakiin false uu noqonayaa laakiin haddaad ka tagto oo saan lagu yarto halkaana ay false ay ku jirtay true ka dhigaya haddii lacala true ku jirtayna false uu ka dhigaa maaha macnaheedu true unbuu ka dhigayaa bas kaliya true unbuu wax ka dhigaa marka that's it taas marka taas waaye haddaa kan hadana soo koobiyey kolley kan kale waxaan ka rabaa backgroundkiisa inuu caadi iska ahaado reversina uusan ahaan sikar muxuu noqonayaa sidan soo ma jeed marka hal mar baadinkan inaan yara weynaystaan u baahanahay kolley baadin top iyo badan labadaba inaan kala go'an baadin bottom isagana waxaan leenahay contentka pixel oo kaleeto labada dhinac baa uga soo daray soo ma jeed marka qaybtaanna sidaan waaye marka ilaahay kuma sima diiday intaas waa inoo diyaarsan tahay okay intaan listigan haysanaa oo datada ah marka listigan waa kana datadan listigan haysanaa listigan datadiisaan ku bedelanaynaa macnaha okay marka saa darteed intaan dhan uma baahni labadan uma baahnin hal mar sectionkan tagaya xogtan title positionkan head codingkan ka dhaafaan leenahay waxaan keensan doonaa titlekaas isticmaal sidoo kale descriptionka head coding iska dhaafaan leenahay midkaan aan keensan doona isticmaal aw descriptionkan isticmaal okay description sidoo kaleeto labelkan buttonkana isagana head codingkan iska dhaafo oo waxaan isticmaali doonaa midaan keensan doono okay button label clear iyo imageka ayadana head codingkan ka dhaafayna waxaan leenahay image anagaa keensan doono positionka ku imaanayna waa kana macnaha marka image url-kiisa halkaan noogu jira mar walba intaan keensanana that's it okay marka waxaan isku dayaa inaan kuwan ku dabaqo magacyada si hadhowtii aanan dib ugu soo qorin hadana macnaha marka halkaan waxaan leeyahay image that's image okay
description iyo description kulli waa isku mid saan filayo JSON-ka hadaad fiiriso waa isku midkii marka button label asigana aan tago yes button label asigana waa isku midka macnaha oh sorry button yes inta halkaasaba iga qaldan intaan tagaya waxaan leeyahay okay intaanba button label la kadhig oh sorry button label saasina u qormayaan rajaynaya button label okay intaas markay ii samaysantaha marka waxaan rabaa halkan aan tegaynaa meeshaan u socdo meeshaan waaye marka inta ID-yaan samaysanayo kulle xala waan ka hadalnay ID-yadan waxay yihiin waxay ahaayeen inta ID-yan keensanayna halkan waxaan leenahay 1 kaas waa 1 mid kale halkan keenayna waxaan leenahay kan waa 2 mid kale saddexaad inta keenayna waxaan leenahay 3 okay intaas safe aan leenahay halkan markaan tagno waxaan soo import garaysanaa datadii okay import data from this data okay asiga marka intuu ka imaanaya dot slash intuu ku jiraa datada waxay ku jirtaa componentiga gudihiisa okay componentiga gudihiisa ku jirtaa marka waxaan leenahay dot slash ama dot slash component yes positionkiiba la taalaaba macnaha waa kana macnaha okay mainkii ku xigta okay good datada halkaas inay noo taala marka waxaan rabnaa sectionada inaan kala siisino halkaan aan tegayna waxaan leenahay data okay data dot map inaan ku sameynaynaa marka halkaan waxaan leenahay information ama info la iska dheh deetana gudaheedaan tegaynaa gudaheeda markaan tagno waxaan soo celin doonaa section okay hal haddaan soo koobiyey halkaan aan dhigaya inta markaan dhigo waxaan u baahanahay inaan xogta dhan u baas gareeyo waayo xogta aan u baas gareynayo waa isku midkii soo ma dot info wax walba info ku jiro halkaan geli sidoo kaleetana keyga waxay noo siinaysaa info hello Yeah. info.id sorry info.id aan siisanaya sidoo kale waxaan u baahanahay kuwa qaarkoodna reference in laga dhigo kuwa qaarkoodna aan reference laga dhigin hal mar intaan save gareysto inta maxaa imaaday iyaga dhan waa isku wada kasiya laakiin button waxaa u jeedaa in image-kii uu meesha ka maqan yahay okay image-ka wuxuu iga rabaa managing keliya asiga halkan waxaa leenahay image-ka intaan tegaynaa waxaa leenahay info.image image walba waxaa raaci doono plus concatenation ku sameynaya waxaa raaci doono ama waxaa tirahdaa kii caadiga template electoral iska isticmaal image walba deetana bracket kan aan kusoo xiraya image walba marka wuxuu noqonayaa sidan marka dot png uu leeyahay laakiin tiri ku socdan 1 2 3 ay yihiin soo ma halkaan aan tagayna marka waxaan leenahay waxaana siisaa indexka aad haysato indexka ilan position ka noo sheego indexka marka 0 kasoo bilaabanaya hal baan ku dareynaa macnaha halkaan aan tagayna kaasaan furayna waxaan leenahay okay index plus 1 0 ka bilaabanaya hal ku dareeyaa macnaha marka 1 waa saas ku noqon marka safe haddaan yaraado maxaa imaaday image kii kood waa yimid laakiin kii labaad ma imaan ma ka yara bedel kuley waa kan jpeg waaya okay mid baa jpeg naga ah so marka waxaan leenahay halkan maadaama uu midkood jpeg naga yahay simple kan jpeg naga noqday kaaladaan bedelna ka waran rename hadaan ku sameyn png hadaan ka dhigay naga diida png say okay say buu bedel waxay ka dhacana aragno yes asiga wuu yimid laakiin waan ujeeda backgroundka in xoogaa yara qaldan yahay
okay waxa dhan wada blue uu ka dhigay background-yada marka cagsigan ka rabnaa inay noqdaan si ka magaciisii hal ah okay midka koobaad marka waxaan leenahay kiisi ah kan hadirtan kiisi waaye dhaban kan hadirtan kaba soo 0 waaye 1 2 so marka si taas aan u sameeyno waxaan leenahay indexka aad haysid waxaan leenahay is refers sortaan sameey is refers waxay true noqon doontaa indexka aad haysid oo modulus 2 hadduu la mid tahay 0 hadduu 0 la mid yahay marka hadirtan maxaa imaanay kan koowaada cagsi laga dhigay laakiin halkan inta un baan cagsi ka dhigayaa bis symbol maxaa imaanay waa isdhaadhaafsan yihiin sooma background-kana rabaa marka inaan kan sidoo kale background-kana inaan la bedelaan rabaa marka intaan code-kanaan haystaa waxaan tegaynaa halkan waxaan leenahay bg color background colorka waxaad isticmaashaa haddii uu yahay sidaan true haddii tahay qaabkan hadduu true yahay waxaad isticmaali doontaa waxaa la isticmaalayaa waxaad isticmaashaa macnaha kan markuu true yahay kolley waa arkaynaa waxaan soo kordhinaa kanaan soo qabanayaa primary color isticmaalaan leenahay primary color wow this primary color isticmaal haddii kaleetana haddii kale waa cagsigeeda lacala haddii timaado kulley waa saxin haddii qalad yar nagu yimaado waxaad isticmaashaa pg white isticmaal okay save okay hadaad fiiriso cagsi uu ka dhigi soo maa laakiin waxaan rabnaa in aan taas ka dhigno marka kan un baan leenahay equal just that okay soo ma jeed sidii aan ugu talagalno ku yimid soo ma here and that marka intaan kulley intaan aan caawa ku ekeenayaa adinka idiin daynayaa inaad ku dartaan saddexdan component oo geeska ah saddexdan component oo hoos okay qof walba isku dayo kulley inuu saddexdan component uu kusoo daro sidoo kale uu dib u soo sameeyo intaan okay resource-ga dhan github-kan soo geliyo dib u sameey ayadoo ay ku darsan tahay intaan isticmaalna design-ka ama logic-ka aan isticmaalayo in aad waxaada components-kaad kala qaybiso hard coding waa la sameyn karaa sida html-ka camal nidaamkii ah waa la sameyn karaa haddaad fiiriso meeshaan code-keena aad u yaryahay intaan ilaahay community iyo menu-ga haddaad fiiriso qaybtan section-ka iyada button oo halaan ah buttonka waa fudud yahay soo jeedid sidoo kale converter-ka oo contrast-ay ku sameynaya qoraalka iyo waxaan qoraalka background-ka markuu wide yahay qoraalka wuxuu ka dhigi doonaa kan background-ka markuu blue yahay qoraalka wuxuu ka dhigi doonaa colorkaas macnaha contrast-ga noocaas aan u sameysanay sidoo kale inta waxaan sameysanay component hal component kulley kan haddaad doonto waa kala jebin kartaa oo text component aa ka dhigan kartaa laakiin it's not matter xilligan wax macno badan ma sameynayso okay marka bal isku day inaad adiga intaan aad dib u qortid